salaamullaahi calaykum isku soo noqod wanaagsan maanta waxaynu qaadan doonaa koorsadeenii pathology-ga casharkii saddexaad casharkan waxaynu ku baran doonaa qayb muhiim ah oo loo yaqaano necrosis-ka waxa uu qayb ka yahay cell death-ka oo ah dhimashada unuga waxaan filayaa inaad la dhammaysan doontid kana bogan doontid casharkani biidnillaahi jalla wacala ka hor intaynu bilaabin muuqaalka waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkani like garayso la wadaagtid asxaabtaada haddii aynu u qalanno rukumo janaalkani kana mid noqo asxaabta sida joogtada ha ugu xiran waxaan kaloo si gaar ah uga codsanayaa bahda caafimaadka ee sida joogtada ha inoogu xiran in bisha barakaysan ee Ramadaan ay nagu soo food leh intaan la gaarin in janaalkani uu hiigsado 500 ee subscribe oo ay ugu dhiman tahay tiro aad u yar waxaan rajeynayaa intaan la gaarin bishaasi inaad ina gaarsiin doontaan tiradaasi iyo ka badanba insha Allah muuqaalkeennii hore waxaynu kaga hadalnay cell injury dhaawac ku yimaada selka dhaawacyadu ku dhici kara selka waxay noqon karaan mid reversible ah oo soo laabta oo bogsoon kara iyo mid irreversible ah oo aan bogsoon doonin ee noqon doono ugu dambeyn in unuga ay ku dhacdo xaaladda ah death in uu dhinto dhimashada selka ku imaan doonta waxaa loo qaybin doonaa laba qaybood midkood inuu dhinto qaab programmed ah oo loo yaqaano apoptosis ama qaab inuu dhinto pathological ah marka ay noqoto in laga hadlo apoptosis iyo necrosis apoptosis waxa uu noqon karaa physiological ama pathological cell death dhimasho ku timaada selka taasoo ay noqon karto mid ku timid si physiological ahaan ah shaqadii jirka ka socotay normal process-ka ahayd ama mid ka timid pathological oo noqon karto inay ka timid irreversible cell injury ama cilad kale ku timid selkaba apoptosis waxa uu noqon karaa physiological ama pathological cell death dhimasho ku timid selka taasoo noqon karto mid ka timid shaqadii jirka ama u timid si pathological ahaan ah markaynu ka hadalno physiological ahaan jirkeena mararka qaar waxa uu doonayaa inuu iska saaro unugyada qaar gabi ahaanba laga saaro unugyadaasi jirka haddaba qaabkaasi loo marayo in lagu saaro unugyadaasi iyagoo lagu sameynayo burburin ayaa loo yaqaanaa apoptosis necrosis markaynu ka hadalno mar walbo cilada waxa ay ka timaadaa cudur always cilada waxa ay ka timaadaa pathological markii la sameynayo isbarbardhig ama inta badan la kala saarayo labada eray apoptosis iyo necrosis waxa inta badan loo kala tiiriyaa in apoptosis ay physiological iyo pathological ba noqon karto halka necrosis always uu yahay pathological aynu ka hadalno definitionada ay leedahay necrosis marka laga hadlayo waxa ay leedahay definitiono aad u badan balse kuwa ugu caansan baynu halkani ku bayaanin doonaa definitionka koowaad waxa uu leeyahay waxa loo qeexi karaa necrosis inay tahay dhaawac aan la filaynin ama dhaawac aan loo baahnayn ee gaaray unuga ama dhaawac shil ah ee gaaray unuga ama dhaawac cudur keena ee gaaray unuga natiijadii ka timid ayaa loo yaqaanaa necrosis qeexidda labaad haddaynu fiirino waa isbedelo halis ah ku yimaada qaabka unuga kuwaasoo ka soo dhasha ama ka yimaadaba dhaawac aan soo laabasho lahayn ama dhaawac irreversible ah ayay ka soo farcamaan midka saddexaadna waxa uu leeyahay marka ay dhintaan unugyada dhimashadaasina inta badan ay qabsato hal goob ka mid ah jirka ayaa loo yaqaanaa necrosis inay dhintaan unugyadii haddana ay qabsadaan goob ka mid ah jirka ayaa loo yaqaanaa necrosis maxaa keeni kara in uu u dhinto unuga qaab irreversible death ah waxaa keeni karo jugta oo kale oo ku dhacda selka infectionada oo kale ischemia oo kale oo timaado qulqulka dhiigga inuu yaraado shucayada qaar sida kuwa ultraviolet radiation oo kale iyo x-rays oo kale haddii ay gaaraan jirka waxa ay weeraraan ama dhaawac u geysan karaanba selliska toxinska ayaa ka mid ah oo drugs oo kale iyo sumowida kale ee lagu sumowo waxyaabaha kiimikeed ayaa keeni kara in uu unuga u dhinto qaab necrosis ah
temperature zaid ah haddii qofka uu ku bato marka temperature-ka ama heerkulkii jirka waxaa dhici karta in unugyada qaar ay dhaawacmaan dhaawacaas oo noqon kara in unugyada qaar ay noqdaan kuwo u dhinta qaab necrosis ah. Immunological reactions falgalada qaar ay sameeyaan difaaca jirka ayaa sababi kara in la burburiyo selkaasi aan gaarin waqtigiisii. Haddaba marka joogta infectionada qulqulka dhiigga oo yaraada shucaaca oo kale sunta iyo temperature-ka oo zaa'ida ama heerkulkii oo zaa'id noqda iyo difaaca falgalada ka imaadaba waxa ay saameyn ku yeelan karaan in ay sababaan necrosis inuu ku dhaco unuga. Jaantuskani aynu ku fahanno qaabka necrosis uu dhaco. Necrosis marka uu dhacayo aynu fiirino marka unuga marka koowaad marka uu ku jiro xaalad normal ah waxaa dhacaysa in marka uu galo xaaladda necrosiska uu unuga noqdo swelling oo inuu bararo. Bararkaasina waxa uu ku imaan doonaa organelleska horena inuu sheegnay waa qaybta cytoplasm-ka ka mid ahayd qaybaha kale ee organelleska ah dhammaan ama qaybo ka mid ah waxay noqon doonaan in ay bararaan. Bararkaasi kadib waxaa dhici doono in xuubkii daboolayay unuga ee ahaa plasma membrane uu dilaacmo. Kadib markii uu dilaacmo unugii iyo nucleuskiiba waxaa dhacaya in ay burburaan in lagu sameeyo lysis in ay burburaan. Burburkaasi marka uu dhaco waxa ay keenayaan inflammation. Waxaa dhici doono in uu yimaado inflammation. Kadib inflammation markuu yimaado difaaca jirka khaasatan unugyada loo yaqaano macrophageska waxa ay sameyn doonaan inay ku sameeyaan engulfment uuna dhaco process loo yaqaano phagocytosis. Habka ay ku sameynayaan unugyada macrophageska in ay ku quutaan ay ku sameeyaan burbur waxyaabaha inflammationka ayaa loo yaqaanaa phagocytosis. Waxaan filayaa qaabka uu dhaco necrosis inaad hadda si fiican u fahantay. Noocyada uu leeyahay necrosis waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo aad muhiim u ah. Qaybo badan waa ay jiraan balse marka ugu hore waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo ugu weyn. Labada qaybood ayaa ah qaybta kood waxaa loo yaqaanaa coagulative necrosis. Coagulative necrosis markaynu ka hadalno waa most common type of necrosis. Qaybta ugu caansan marka laga hadlayo necrosiska waa qaybtani inta badan waxaa keena ischemia ama hypoxia ayaa keena waxayna ku dhacdaa dhammaan qaybaha jirka. Unugyada jirka dhammaan waa ay saameysaa oo ay ku dhacdaa keliya marka laga reebo maskaxda. Meesha keliya aysan saameynayn waa maskaxda. Qodobka labaad waxaa loo yaqaanaa liquefactive necrosis ama colligative necrosis. Liquefactive necrosiska waxaa inta badan keena infectionada. Cudurrada qaar uu keeni karo waxaa ugu caansan cudurka loo yaqaano myocardial infarction ayaa ugu caansan. Cudurrada uu keeni karo noocani ka mid ah necrosiska ee loo yaqaano liquefactive necrosis. Noocyada kale ee jiri karo ee necrosiska ka mid ah waxaa qayb ka ah qaybtani loo yaqaano gangrenous necrosis. Waxaa jirto gangrenous necrosis. Inta badan waxa ay saameysaa extremitiska. Extremities waxaa loo yaqaanaa gacmaha iyo lugaha ayay saameysaa inteeda badan. Waxaana keena bacterial dhowr ah ay ka mid tahay bacteriada nooceeda Clostridia. Necrosiskani meesha uu ku dhaco waxa ay soo muujin doontaa muuqaal madow ah taasoo keenaysa in meeshaasi ay noqoto muuqaal ahaan mid madow. Caseous necrosis waxaa kaloo loo yaqaanaa caseous degeneration. Waa nooc ka mid ah dhimashada nudayaasha kaasoo dhammaan unugyada ay weyn doonaan organelleskooda wuxuuna u muuqan doonaa ugu dambeyn unugii inuu yeesho qaab sida farmaajada oo kale. Geedkani loo yaqaano cheese-ka ama farmaajada sida halkani baad kaga dheehan kartaan. Qaabkani oo kale ayaa uu u ekaan doonaa bukaanka ay ku dhacdo ama qofka ay saameyso noocani necrosiska ee caseous necrosis. Inta badan waxaa lagu arkaa bukaanada qaba cudurka tuberculosiska ama ku dhacaba cudurkaasi waa lagu arkaa. Noocyada kale haddaynu usii gudubno waxaa ka mid ah fat necrosis. Fat necrosis waxay dhacdaa marka dufanta jirka ku jirta dhiiggii iyo oxygentii ay qaadan jirtay ay yaraato ama saameyn ay ku timaado. Waxaa dhacaya in unugyadii dufanta ay dhintaan. Sababta marka halkan nooga muuqata inta badan fat necrosiska marka waxaa keena waxay ku imaan kartaa ischemia ama waxa ay ku imaan kartaa hypoxia. Qaybta ugu dambeysa haddaynu fiirino waxay noqon doontaa fibrinoid necrosis.
fibrinoid necrosis waxaa inta badan dhacdaa marka ay isla falgalaan difaaca jirka iyo antijiinada. Antigen antibody marka ay isla falgalaan ay isku dhagaan kadib taga xididada dhiigga, khaasatan darbiyada xididada dhiigga ay leeyihiin, inta badan waa kuwo la xiriira marka difaaca jirka. Hadalkaasi marka waxaynu ka fahmi karnaa waa kuwo immune mediated ah, waa kuwo la xiriira difaaca jirka. Waa kan ugu badan inta badan keena inflammation-ka ku dhaca xididada, caabuqa la xiriira difaaca jirka ee ku dhaca xididada, kaasoo lagu arko inta badan dadka qaba cudurka xasaasiyadda type 3 hypersensitivity. Aynu sameyno marka isbarbardhig labada xaaladood ee cell death-ka oo kala ahaa necrosis iyo apoptosis. Necrosis iyo apoptosis waxaa farqi ah u dhexeeya. Necrosis always sidaynu hore usoo sheegnay waa pathological, mid ku timaada cudur ama qaab cudur ahaan ku timaada, halka apoptosis always ay iyadana tahay labada xaaladoodba physiologicalna way ku imaan kartaa, pathologicalna way ku imaan kartaa. Qaab waxay ku imaan kartaa shaqadii jirka ahayd, qaabna waxay ku imaan kartaa cudur inuu sababo. Necrosis waxa uu noqon karaa uncontrolled cell death, dhimashadiisa ma ahan mid la xadidi karo ama la kontroli karo, balse marka apoptosis ay tahay waa controlled, waa mid la xadidi karo. Unugyada waxay noqonayaan marka la joogo necrosis kuwa barara, balse marka la joogo apoptosis waxay noqon doonaan cell shrinkage, in cellkii ama unugiiba uu noqdo in uu isku soo ururo. Marka laga hadlayo necrosis, unugyada deriska la ah dhammaan waa uu saameyn doonaa, balse marka la joogo apoptosis keliya halka cell ee loo baahan yahay unbaa dhiman doono. Necrosis waxa uu leeyahay inflammation oo ah caabuq ayaa imaan kara marka ay xaaladdu tahay necrosis, balse marka dhimashada ay tahay apoptosis ma jiro wax inflammation ah. Farqiyadaani ayaa lagu kala saaraa marka loo baahan yahay in differential comparison, isbarbardhig farqi ah. Waxaa halkaa inooga eg casharkeenii maanta. Haddii ay jiraan su'aalo ama oraah aad inala wadaagaysid inoogu dhaaf qaybta hoose ee commentiga. Casharkaani casharka xiga intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum.